بسم الله الرحمن الرحيم والصحافة ما أنت تهاي 29 bisha 11 2018 dalada daneeyaasha aan dawliga ahayn ee Puntland Bonsa waxay ugu baaqaysaa madaxweynaha dawladda Puntland Mudane Cabdiweli Maxamed Cali Gaas qodobada soo socda. Number 2 in guddiga xalinta khilaafaadka iyo kala saarista xildhibaanada inuu noqdo mid dhexdhexaad ah si daacad ahna u dhameyn kara khilaafaadka soo wajihi kara lehna amaano. Number 2 xubnaha guddiga waa inaan lagu darin siyaasiyiinta xilka haya ama ka soo qayb gala dawladihii hore ee waa in laga soo xulaa bulshada qaybaheeda kale waana inay ahaadaan dad sharaf karaamo ku leh shacabka reer Puntland. Number 3 xubnaha guddiga waa inuu noqdo mid loo dhan yahay oo qoondada haweenka la siiyo si ay u hubiyaan matalaadda haweenka ee golaha wakiilada ee la soo xulayo. Bonsa waxay sidoo kale ugu baaqaysaa dhammaan musharaxiinta xilka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka inay ka taxadaraan inay isticmaalaan hadallo xanaf leh kaas oo wax u dhimi kara amniga iyo wadajirka shacabka Puntland. Bonsa waxay ugu baaqaysaa dhammaan musharaxiinta inay qayb ka qaataan sugidda amniga ayna xadidaan ilaaladooda taasoo qayb ka qaadan karta in doorashada ku dhacdo jawi nabdoon. Wabillahi tawfiiq. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.